caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo toddobaadkii mar aad kala socotaan. toddobaadkani barnaamijka caafimaadka waxaanu ku soo qaadanaynaa waxyeelada caafimaad darro ee sigaarku u leeyahay bini'aadamka. barnaamijka waxaa marti ku ah sharaxayana caafimaad darrada ama dhibaatooyinka ka dhashay sigaarka cabistiisa Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho barana ka ah jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurrada ku dhaca caloosha, beerka, dheefshiidka iyo internal medicine-ka. Professorku waxa uu ku dheeraan doonaa caafimaad darrada uu dhaliyo sigaarka iyo sida looga gaashaaman karo. daawadeel ku soo dhawaada mar kale barnaamijka caafimaadka ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed. barnaamijkana waxaa la socodsiinaysaa anigoo ah Leila Cabdismaan. ururka caafimaadka kusoo dhawaaw Professor barnaamijka caafimaadka ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed. waxaana barnaamijka mawduucan kaga hadlaynaa toddobaadkani uu yahay dhibaatada caafimaad darro ee sigaarku u leeyahay bini'aadamka maadaama ay ku beegan tahay 13 May oo ah maalinta loo asteeyay joojinta sigaarka dunida. aada u mahadsantahay Leila. waa bismillahir rahmaanir rahiim. waayahay adoo aad u mahadsan barnaamijka waxaan maleynayaa in aad kusoo dhawaatay. su-aasha ugu horeysa waxa ay tahay waa maxay waxyeelada caafimaad ee sigaarku u leeyahay bini'aadamka? imise cudur ayayse u kala baxan cudurrada laga qaado cabista sigaarka? bismillahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin. ama bacd, waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan salaamo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen ama barnaamijkeena xiiseynaysa oo dhageysanaysa. kow tan labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo telefishinka qaranka gaar ahaan bahda caafimaadka fursadan runtii aada u wanaagsan oo maanta bulshadan ay siiyeen anna ay siiyeen sana wacyigelinta ku aadan maalinta joojinta cabista sigaarka ee ku beegan 31 inaan fursadaas u helno si aan bulshada wacyigelin aan ugu gudbino ayagana ugu mahadcelinaya. haddaan usoo noqdo marka su-aashii waxyeelada caafimaadka oo u geysanaya sigaarka ama sigaar cabista ama tubaakada guud ahaan oo dabcan ka koobmaya waxyaabo badan tubaakada markaan dhahayno oo ah sigaarka la cabo, baybka, sigarka, tubaakada la caliliyo oo ama la ruugo, tubaakada kale oo daanka la gashado iyo wixii la mid ah. intaba waa tubaako gaar ahaan marka lasoo qaadayo sigaarka oo ah kan ugu marka shiishada iloobin intaasoo dhan waxaa weeye waa tubaakada waxyeelana u geysto bini'aadamka caafimaadkiisa. gaar ahaan haddaan soo xuso cabista sigaarka waxaa la yiraahdaa waxay uu sababaa cudurro badan ilaa 25 cudur oo kale ah sida culummada ay sheegaan. ha ugu horeeyo boqolkiiba sida la yiraahdo 30 oo ilaa 25 ilaa 30 wuxuu keenaa cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididaha. cudurrada wadnaha iyo xididaha dabcan asigoo sababaya markaa xididaha wadnaha markuu dhibaateeyo ama xiro soo sababaya wadnuhu istaaga waxa la yiraahdo heart attack. sidoo kale wuxuu sababi karaa stroke waxa la yiraahdo oo xididaha kale gaar ahaan kuwa maskaxda inuu dhibaato u geysto ama dhuubo ama xiro
sidoo kalena waa keeni karaa. laakiin hadda midda wadnaha haddaan usoo noqdo yani wuxuu keenayaa arinta heart attacka ama wadnaha weynaada waa dhibaatada ugu horeyso 25-30 anakoo casharkeena dabcan uu ku wajahan yahay qaab wacyigelineed uusan ahayn qaab academic. sidoo kale muxuu ahayto wuxuu dhibaateeyaa neef mareenka ama waxaa la yiraahdo dhul neef mareenka iyo sambabka. wuxuu keenayaa waxaa la yiraahdaa cuduradan la yiraahdo inuu xiro muxuu ahayto dhul neef mareenka oo la yiraahdo maxaa la yirahdaa chronic obstructive pulmonary disease oo yani markuu adkaado ama xiro dhul neef mareenka kaasoo noqon karaya ma u kala bixi karaya sida qaybta la yiraahdo chronic bronchitiska oo mid iyo tan kale oo muxuu ahayto emphysema oo yani wadnuhu adkaada ama weynaada kadibna adkaada oo muxuu ahayto kiishashkii ama alveolus waxa la yiraahdo oo hawada gudbinaya oxygenka iyo muxuu ahayto gaaska gudbinayo oo ku kala gudbinayo muxuu ahayto alveoluska oo dhacaya in muxuu ahayto adkaadaan halkaasna yani oxygenkii gudbi lahaa ama jirka yani usii gudbi lahaa uu yaraanayo. tan kale muhiimka waxaa weeye kansarka ku dhaco sambabka. kansarka ku dhaco sambabka waxaa lagu sheega kan ugu badan inuu yahay kuwii ugu horeeyey oo cilmi baarista markii la sameeyey wuxuu keenaa ama sababa kansarka tiro dhan ama percentage dhan 30% ilaa iyo 35 ayuu keenayaa. waxaa kaloo muhiim oo inaan xusnaan loo baahan yahay fursadan in muxuu ahayto keentayna runtii allaamka weyn ama yani walwalka weyn in la arkay darasadii u dambeeyey in muxuu ahayto sigaar cabista ay keenayso cancers badan ama cuduro badan oo kansarka oo ku dhacaya xibno kala duwan oo ay kamid yihiin sida midka muxuu ahayto ku dhaco afka ama muxuu ahayto dhuunta ama larynxka la yiraahdo qaybta muxuu ahayto oo yani neefta yani marinta laryngeal la yiraahdo. waxay kaloo keentaa wuxuu kaloo kansarka ku dhacay hunguri wadeenka ama esophaguska, kansarka ku dhaca caloosha, kan ku dhaca muxuu ahayto beerka, xameetida, kan ku dhaca muxuu ahayto lafaha, kan ku dhaca muxuu ahayto kadahaysta, kan ku dhaca muxuu ahayto uutaraha, intaasoo iyo qaar kaloo badan meelo badan oo ku dhaco maaragtay kansarkaas oo keenaya muxuu ahayto cabista sigaarka. waxaa kaloo muhiim in muxuu ahayto sigaarka uu sababo waxa la yiraahdo ilmo la'aanta ragga iyo haweenkaba. tan kaloo ayadana muhiimka oo in halkan ka xusan loo baahan yahay waxa weeye 85% inuu sababo muxuu ahayto waxa la yiraahdo caninimada ragga ama yani raganimada oo la waayo waa impotensiga inuu keeno 85% oo runtii waxa runtii aad dhiiladeeda xambaarsan tan kale muhiimka waxa waaye weli haddaan waxyeelada caafimaadka sii sheegno in arrimaha oo yani dhibaato weyn u keeni karo indhaha, yareeyo maqalka dhagaha, maqaarkana uu keeno muxuu ahayto in isbedel xoogan oo gaar ahaan bacdama oxygenka uu ku yaraanayo xididihiina uu ka yareynayo dhiigii tagayay si waafi uusan u tagaynin. waxaa yani dhacaya midabkii inuu qofkii midab doorsoomayo, midabkiisana isbedel ku dhacaya gaar ahaan yani wejiga iyo muxuu ahayto meelo kaleba in yani uu ku yaraado. tan kale muhiimka waxaa waaye maaragtay haweenka uurka leh. haweenka uurka leh yani wuxuu sababaa ilmaho dhicisa, miisaanka ilmaha oo yaraada markay umusho, iyo ilmihii oo neefqaad yeesha ama asphyxia wax la yiraahdo oo yani ilmihii oo yani uusan xambaari karin ama neeftii neefqabta sidii qof soo qabo kale cudurka asmada oo kale, iyo isigoo yani midabkiisa markuu dhalanayo xataa aad u madow yahay maxaa yeele oxygenationkiisu aad u yaraado. yani intaas waa midda yani haweenka iyo uurka leh cunuga oo muxuu ahayto waayahay.
su-aasha kale waxa ay tahay aan tutorial ku weli waxaa iisii dhiman raali noqo arrinta maskaxda waa muhiim haye arrinta maskaxda wuxuu keenaa maadaama dhiigii tagayo uu yaraado uu sababi karo waxa la yidhaha arteriosclerosis dhiiggii yaraanayo cidadii uu xirmaya ma yaraanayo dhiiggii waday dhiig waafi un tagayn maskaxdii waxaa dhacaya in yani xasuusta yaraato oo yani uu yani qofka ilowsho badan ay ku timaado oo fikirkiisu aada u hoos ugu dhaca deganaasho la-aan acsaabtiisu had iyo jeer kacsan taas runtii waxay yani ka hor imaanaysaa ama yani cagsi ku tahay fikirka laga qabo oo ah in muxuu ahayto sigaarka yani relaxation laga helo ama yani qofka uu ku dego qofka kuma degayo laakiin acsaabta u keenaya hurdalaantiis u keenaya maskixiyan waa yani waa dhibaatooyin badan u keenaya oo muxuu ahayto oo hurdala-aanta ugu badan tahay maaragtay waayahay qofka sigaarka cabo keliya miyee waxyeelada sigaarka ay ku eg tahay mase dadka kale oo bulshada qofkaasi ku agnool amaba ka agdhowiyay sigaarka waxyeeladiisa saameynaysaa waa su-aal fiican dad yani dhibaatada hadda aan soo sheegnay caafimaad sigaarka yani qofka caba keliya kuma ekaanaysa qofka agtiisa jooga ama muxuu ahayto dadka ka agdhow ama ha noqdaan yani waaridka yani guriga ilmaha ku dhex cabaaya oo kale ha noqdaan ama ha noqdaan yani goobaha la fadhiisto oo lagu sheekaysto dadna cabayaan dadna aysan cabayn dabcan qofka aan cabayn wuu qaadanayaa wuxuuna yani ku sugan yahay waxyeeladii aan soo sheegnay ee dhibaatada caafimaad 25 ilaa 30 in yani dhibaatada aan soo sheegnay qaar waxay yiraahdeen waliba ilaa 35 in ay ku dhici karto keeni karaayo yani cuduradii aan soo sheegnay qofka inuu ku dhici karaayo marka waana second hand smoke waana waxyaabaha aad iyo aad looga qayliyo oo keenay waxyaabo badan oo hadhow ka sheekan doono in laga xaliyay qofkan sidoo sigaarkii ula qaadaya qofka kale waxyeeladiisa ula wadaaga sidee u soo gaaraya sigaarka qofka lagu cabay waa su'aal aad u fiican iyadana waxaan rabay inaan xuso in sigaarku uu yani xambaarsan yahay ama wato maadooyin oo sun ah dabcan chemical ah oo maadooyinka la yiraahdo waxay wadaanba cudurrada haddaan soo sheegaynay iyo kansarkaba yani maadooyinka dhaliyo ilaa 12 maado lagu tilmaamaa oo kamid yahay taarka oo kamid yahay arseniga oo kamid yahay formaldehyde-ka oo kamid yahay ammoniumka taas waa maadooyinka runtii iyo qaar kaloo badan waa maadooyinka keenaya cudurradan soo sheegnay iyo weliba muxuu ahayto cancerska balse waxaa kaloo jiro maadada la yiraahdo nicotinka ee ku jirta maaragtay sigaarka waa maadada sababta in la qabatimo jir ahaan iyo maskax ahaan addictionka mid sameynayso waa nicotinka oo qofkii uu marka waxyaabahaas oo dhan maadadaas oo dhan oo ku jira maaragtay sigaarkii qaaciisi dabcan qofkii kale waa u gudbayaa hadduu u gudbana wuxuu keenayaa marka muxuu ahayto in dhibaatadii caafimaad uu qofkan xambaarsanaa ama yani qaadanayay sida tooska asigana si dadban inuu u qaadanayo soo sigaarka cabin waa second hand smoke aad ayuu u mahadsan yahay daawadayaal waxaa barnaamijka noo fadhiya Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho ana baraha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka mawduuciisa uu yahay dhibaatada caafimaad xumo oo sigaarku u leeyahay bini aadamka mar kale aad ayaan kugu mahad celinaynaa Professor dalkeena Soomaaliya muddada 20 sano ahayd dhibaatooyin fara badan ayaa soo maray burburka uu ku reebay waxaa dhacday in caafimaadkii wadanka uu control yeelanin in bulshadii waxay rabto isaga dhaqanto in ay daraagiska uu bato maadaama wadanka ay shaqo la'aan ka jirto baahsani dhibaatooyin fara badan oo soo baray dhalinyaro badan ay ku daadatay xagga balwada oo sigaarka kamid yahay bal ka war 20 sano waxyeelada caafimaad ee dhinacaasi Soomaalida xagga sigaarka maadaama caalamka ay la mid yihiin haddana 20 sano maxaa noo kordhay maxaa naga dhimay 20 sano lasoo dhaafay runtii intii uu jiray burburka iyo dagaalka iyo barakaca wuxuu sababay in yani tirada yani sigaarka cabta uu aad u kaco ama aad u tiro badato iyo waxyaabo kaleba gaar ahaan weliba
sigaarka kaliya maaha waxaa hadda 20 sano soo kordhay cabitaanka waxaa la yidhaahdo shiishadda oo runtii aada moodid maaragtay waayahan dambe in aad yani loogu daatay oo dhalinyarada iyo dadka weynba rag iyo haweenba ay aada u isticmaalaan runtiina ay yani dhibaatadii aan soo sheegnay waxyeelada caafimaadka ay leedahay oo yani ay gudbin karayso marka taa waa tan runtii yani welwalka weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed uu maaragtay uu sababo inay tahay maaragtay waxyaabaha aad iyo aad dhibaatada weyn ugu hayo haddaan soo qaado aan tirakoobka tirakoobka intaan u gudbin waxaa jirta caruur aad u yar oo sigaarka isticmaasha iyo haweenka iyo caruurta ma ka waxyeelo duwan yihiin dadka waaweyn oo kale sigaarka caba sida ragga waa su-aal fiican runtii caruurta weliba da-dooda yar tahay iyo haweenka weliba gaar ahaan kuwa uurka leh waa ugu nugul yihiin dhibaatooyinkaan soo sheegnay aad bay ugu nugul yihiin maaragtay maxaa yeelay ma xamili karaya ama difaacooda ama awoodooda jireed iyo ayaan muxuu ahayto aad uga nugul yani taasna waxaa ku arkaysaa in yani tirakob la sameeyo dhahaya caruurta da-dooda 5 ka hooseysa ama kuwa 20 ka hooseysaba yani waxyeelada uu u geysanayo 3 jeer ayay ka xog badan tahay yani inta 20 ka weyn oo kale marka laga hadlayo caruurta haweenkan uurka lahayn iyo haweenka uurka lahayn waa sidoo kale runtii aad iyo aad waxaa dhibaatada ugu culus tahay ama dhibaatada weyn ay gaaraysaa muxuu ahay haweenka uurka leh maxaa yeelay ma aha oo kaliya yani iyada kaliya maahe حتى يعني عنقي أي تسيتوس وجود بايا يباتون كان صور شيء سنتي قوتي معي تسير. واي إمي صدق يا سنة كيو جريدة أما ملايين أو سجار كسامين كياشا عافيمات كودا أما بقريدة بقى الدنيا ده. وسؤال في عن تركوب كدير السوق هذا ودتك يعني يباتون وجيستو رنتي أدب عدد البدنية وحلوق ياسها. هل بيبيع 45 بليون إن يعني أي يعني الدنيا ده أنت استعمالهم هاي تو كذا من سيجارك إنيين تا وحال يرادا مركا هل بليون قياس كله وبقول كي بسيدتنا وحيكونوا ليهين ودمدا سدحات وسكرايا تاس ومدكاله waxaa la sheegay yani sigaarka inuu cimri degdeg leeyahay ama cimri gaabad leeyahay waxyaabahan soo sheegna soo kula faaqayihiin tan kale waxaa la sheegaa in sanadkiiba hadda sida WHO ay soo sheegeen ama ururka caafimaadka adduunka waxay sheegeen in muxuu ahay to sanadka hadda ahaa ay u geeriyoodeen 6 milyan oo qof oo u kala baxa 5 milyan oo ah muxuu ahay to kuwa mar xaaladan sigaarka caba waqti xaadirka iyo kuwa hore cabi jiray ah waa mid tan kale 600 oo kun oo soo hartay waxay kamid yihiin yani kuwa sida dad ban ku cabay sigaarka oo aan soo sheegnay oo ah second hand smoker kooy sodanka May waxaa loo asteeyay maalinta joojinta sigaarka cabistiisa maalintaasi maxay ku dhalatay adoo mahadsan professor runtii maalinta 1 May runtii kadib markii waxay ku dhalatay oo loo asteeyay in horta la xoojiyo kadib markii la arkay khatarta iyo dhibaatooyinkii baaritaan kadib culimada adduunka in yani ay soo ifbaxeen dhibaatooyinka weliba kansarka leh oo tirada badan loo hadaan soo sheegno ilaa 12 iyo ka badan ba ah markaan soo sheegnay ayaa waxaa la sheegay maaragtay in daraasad xog la sameeyay dhibaatada ay ku sii cogbaanaysa bulshadina ay ku sii zaaidaya muxuu ahay cabitaankii sigaarka ayaa waxaa loo asteeyay si loo xoojiyo wacyigelinta iyo ka hortagga muxuu ahay cudurrada uu keeno ama sigaar cabista in loo asteeyo maalin oo maalinta la yiraahdo maalinta joojinta cabista sigaarka taas maxay xambaarsan tahay waxyaabo badan xambaarsan tahay marka maro waa wacyigelinta oo yani dadka la siinayo aan ogeyn dhibaatada uu leeyahay caafimaadka tan labaad waa midda yani shuruucda wadamada yani ku bahoobay
yani caafimaadka adduunka yani convention bay sameeyeen oo la saxay oo la leeyahay yani wadamada adduunka inay kasoo qayb galaan in la mamnuuco muxuu ahayto sigaar cabista goobaha bulshada iskugu yimaadaan oo dhan goobaha maaragtay shineemooyinka yani dukaameysiga xataa waxaa la sheegay muxuu ahayto meelo qaarkood xataa kenyada noogu dhow iyo wadamo qaarkood jidka inaan lagu cabi karaynin baabuurka inaan lagu cabi karayn waxaasoo dhan waxay yani xambaarsan tahay sidii loo badbaadin lahaa bulshada aan sigaarka cabin kuwa kale waa u bareereen yani dadka kalena in lagu cariiri yeelo oo cariiri looga dhigo si muxuu ahayto ay ugu noqoto qofkii inuu ka wahsado oo markii dambena yani wacyigelinta uu soo hogaansamo waxaa dhacaysa qof ka shaqaynaya dabaqa tobanaad sida adduunyadoo kale ama 20aad ama 30aad yani haddii uu damco maanta sigaar inuu cabo wuxuu ku qasbanaanayaa dabaqa ugu hooseeyo oo basementka agtiisa ah qol yar oo laga sameeyo inuu ku cabo mar hadduu usoo degto uu sigaarkii ku cabo yani mar kale wuu ka wahsanaya dabcan marka yani shuruucdaasoo dhan waxay yani adkaynayaan ama ay xanibayaan faafidda yani maxaa la yidhahdaa outbreakan oo sigaar cabista ah ama safmarka yani sigaar cabista adduunka oo faafaysa in laga hortago tan kale ee muhiimka ah waxay tahay oo la tacalluq oo ku xiran dabcan 31 waxaa weeye warshadaha soo saara sigaarka warshadaha soo saara sigaarka yani go-aamada ka soo baxay caafimaadka adduunka iyo wadamada seexaya intaasoo dhan waxaa moodaa inay u dhaganugulaanin marka yani cadaadis xoog laa jira hadda sanadkan halku dhiga oo sanadkan waxaa laga dhigay ama termka oo sanadkan oo joojinta sigaarka ah waxaa laga dhigay yani industrieska ama muxuu ahayto tobacco industries interference oo ah dabcan yani faragelinta qaawan ay warshadaha soo saaro ay ku hayaan yani muxuu ahayto caafimaadka ama khatarta caafimaadka ugu imaanaysa bulshada oo ay xoojinayaan ayagoo marka promotion u samaynayo ama u samaynayo muxuu ahayto xayeysiin ama u samaynayo muxuu ahayto dhiirigelin kale ama u samaynayo waxyaabo badan oo yani advocacy oo yani dhiirigelinayo sidii yani sigaarka uu kusii socon lahaa ama yani ugu gedmi lahaa maaragtay waxay ka fiirinayaan interestkooda dhaqaale ayay khatartii caafimaad ee bulshada caalamka ay dhibaato xoog leh u warsadeen taas waxay sababtay marka sanadkan halku dhiga oo WHO ay soo saartay ama yani ururka caafimaadka adduunka inuu yahay yani faragelinta qaawan ay ku hayaan hayto warshadaha soo saaro inay joojiyaan dhinac kaste ay kala soo qayb galaan wacyigelinta looga hortagayo joojinta iyo ka fogaanta muxuu ahayto cabista anoo su-aasha ugu dambeysa ee dardaaranka kusii doona ee bulshada soomaaliyeed ee kala socota TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo idaacadda raadiyo Muqdisho waxay tahay maxaa farqiga u dhaxeeya tubaakada sigaarka iyo shiishada waxa la yiraahdo oo hadda aad sheegtay in wadanka aad ugu soo korortay farqiga u dhaxeeya waa maxay maadaama bulsho badan ay dadku ka dhaadhiciyaan in shiishada kale aysan ahayn tubaaka ka sameysnayn ama waxyeelada sigaarka kale aysan xambaarsaneen qudrad ay ka sameysan tahay maxay tahay marka farqiga u dhaxeeya si dadweynaheena nala socda oo barnaamijkan ugu talagalnay in ay ka faa'iideystaan wax badanna ay ka bartaan caafimaadkoodana ay kala socdaan ay uga faa'iideystaan runtii waa su'aal aad u fiican yani tubaakada wataan soo sheegay intuu ka kooban yahay waxaasoo dhanaa ka kooban dabcan sigaarkii muxuu ahayto baybkii shiishadii muxuu ahayto siigarkii tubaakada la calinaya tii daanka la gashanaya waxaasoo dhan waa yani waa tubaako waxaa kasoo bilaabta marba yani heer ha soo maraysay yani taariikhda adduunka dabcan intaan soo sheegaynay way wataan yani intaasoo dhan ilan tubaakadii waa xambaarsan tahay balse waxaa usii dheer yani sigaarka inuu yani markii loo fiirsho khatarta uu keenayo waxyaabaha xambaarsan kiimika sida taarka oo kale waxyaabaha kale oo aysan wadanin kuwa kale in yani dhibaatada uu keenayay sigaarka
in dhibkii inuu ka yar yahay waa dhici kartaa laakiin dhibkii waa isla dhibkii dhibaatadii caafimaad waa isla dhibaatadii maadooyinkii waa u wada badan yihin waa ku wada jiraan badankood waa ku wada jiraan shiishada hadda la sheegay ee wadanka yani leeyahay tufaaxay ka samaysan tahay ama waxay ka samaysan tahay muxuu ahaa canabay ka samaysan tahay waxyaabahaas oo waxyaaba lagu hardhe waaye dhibaatadii qaacii nikotiinkii iyo maadooyin kale way wadataa weli waxa uu sii dheer kulkii oo gudbaya inkastoo aan ogahay caawa markaan ka sheekeynayo muxuu inta arrinta shiishada ah dad badan oo runtii oo dhibsanaya balse yani mar damba gadaal ka fahmi doono wacyigelintan oo ay tahay ujeedada dhibka uu keenayo qofka hadda ma oga laakiin akhritaanka waa kusoo ifbaxaysaa xadka yani xaddiga aysan dhammaanin tan sigaarka ah laakiin way wadataa dhibaatadii uu watay muxuu sigaarka iyo nikotiinkiisiiba waa wadataa maadooyinkii saas awgeed waxaan u arkaa in yani ay tahay qiil loo raadinayo muxuu ahayto cabista yani shiishada iyo tubaakada noocyadeeda kala duwan aada iyo aada umahadsan tahay kelmada ugu dambeysa aan ku siinayo professor waxa ay tahay maxaad fari lahayd dadweynaha ku dhageysanaya ku daawanaya ee kala socda tv-ga iyo qaranka Soomaaliyeed iyo raadiyo Muqdisho intaba bulshada Soomaaliyeed dhageysanaysa maanta fursadan aan ka faa'iideysanaya waxaan jeclaan lahaa in ugu baaqo dhammaan meel kasta ay joogaan in kuwa caba sigaarkana inay joojiyaan inta kalena ay ka fogaadaan cabista sigaarka bacdama aanu soo aragnay muxuu ahayto dhibaatada iyo waxyeelada uu leeyahay oo caafimaadka uu leeyahay oo uu leeyahay dhaqaalaha oo uu leeyahay arrimaha bulshada intaba bacdama waxaan baarsan yahay diiniyan hadee waa tii aayadda qur-aanka ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay oo noogu sheego qaala tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxsanuu in allaha yuxibbu almuxsiniin يعني إن سيدينتين شاكتي إن قعمين اسكو تهلوكينين on dhibaato caafimaad aanan ku caafimaad beenin waa tahluuka noqonaysaa taas waa tii xagga diinta bacdama mujtamaceena yani boqolkiiba boqol uu yahay boqol islaam ah yani mujtamac islaam ah diinteena ay farayso yani aayadaas oo yani mid nalagu siinayo duqaanka ama muxuu ahayto sigaarka dhibaatada uu leeyahay sidoo kale aayada kale quraanka ah oo nafarayso dhayso wala taqtulu anfusakum in allaha kana bikum rahiima يعني نفسدنا إن اللجوين سكست طبعا نقطة محايا لقوف سجار كعباية وأنا صوت شجني لبعتدي عافية مادي لمشهد ور سيدايو ولا تقتلوا أنفسكم ونفسدنا هدلينا وأخذ سدي سدلاي تنكله أدو حقول هذا هاي لبعتد قالة وأدو حوجن محايا لي قف من يعني أنت ككون يعني هو آباء وهدانا يعني دخل جسني جري هاي سيارك أنت كعباية وقرقز عن بالشو يعني أنت قول هانكر محايته لبعتد قالة dhibaatada bulsho yani dhibaatada bulsho laba nooc baa noqon karaysa marka dhibaatada bulsho maxaa yeelay bulshada dadkii waxtarka lahaan lahaa oo muxuu ahayto bulshada u shaqeyn lahaa ayaanan gaaraynin waqti oo ka horba dhimanaya ama ka horba noqonayo disable noqonayo yani howlgab noqonayo yani sariir korayo cala alajli cudurada aan soo sheegnay yani waa tii arrimihii bulshada saameynta uu ku yeeshay tan kale haddii arrimaha bulshada waa ku yeelanayaa reerkii ha noqoto muxuu ahayto arrimihii kale oo asiga uu u keenayo ama noqoto raaixadii ama urka uu uraayay dharkiisa halaynayo wajigiisa gacmihiisa farihiisa ilkihiisa uu qaribayo quruxdiisa ku dheelayo waa arrimo bulshada noqonayaan marka intaas oo dhan iyadoo laga maqaadayo ayaa waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed goob meel kasta ay joogaan ayagoo tacabaysa igu dhibsan maxaa yeelay وما علينا البلاغ وهي قفك دير لو شيغو وإن وحو اوغين او يعني هلنا ويعني wax loo faa'iideeyo way marka waxaan jecelahay in ayagu inta ka maqaad inay ka fogaadaan cabista sigaarka yani meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan kala rabaa waalidka yani qaybtan ka soo sheegnay maqaalkeena yani wareysigeena oo guryaha ku cabay ilmo yar yar oo waliba under 5 ah 5 sano ka hooseyso in ilmihiina dhibaato xawli xoog leh aad u horseedaysan ogaada intaasan kusoo gabagabeyn lahaa billahi tawfiiq aad iyo aad ma santahay professor Ismaan Maxamuud Tufle daawada barnaamijka caafimaadka oo kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed toddobaadkani waa naga inta
mowduuca barnaamijka waxa uu ahaa dhibaatada waxyeelada caafimaad oo uu leeyahay sigaarka cabistiisa bini'aadamka. barnaamijka waxaa marti ku ahaa sharaxayana dhibaatadaasi caafimaad uu leeyahay sigaarka Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho waxna ka dhiga jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurrada ku dhaca caloosha, beerka, dheefshiidka iyo internal medicine-ka. Professorka aad ayuu ugu mahadsan yahay sida wanaagsan oo mowduuca barnaamijka nooga qayb qaatay shacabka Soomaaliyeedna uga faa'iideeyay. intiina barnaamijka lama dib u kulmi doono waa Leila Cali Ismaan oo dila sida iyo nabadgelyo. dhinaca kaamirada waa Saciid Maxamed Casayr Xasan iyo waliba Qays. intiina barnaamijka lama dib u kulmi doono waxaad leenahay sida iyo nabadgelyo. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Professor sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaatay. ما شاء الله aad u mahadsantahay Leila. ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka